بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده تعالى وأشكره حمدا وشكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأحمده كما يحب ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضوعا kan waxaan kaga hadlaynaa ama kusoo qaadanaynaa zakaatul fitri, maadaama aynu ku jirno dhammaadkii bishii ramadaan. zakaatul fitriga ayaynu kaga hadlaynaa casharada tan soo socda, oo kan cashara kale uu noqonayo kiisii koowaad. zakaatul fitri tacriifuhaa, qeexid marka la qeexo zakaatul fitriga waxaa la yidhaahdo. marka aynu qeexno, zakaatul fitri hiya sadaqatun tajibu bilfitri fi ramadaan, waa sadaqo waajibta marka bisha ramadaan la afuro. sadaqo waajibta ayaa zakaatulfitri la yidhahdaa. wa udiifat azakaatu ila alfitri, sakadii baa waxaa loo idaafeeyey waxaa la yidhaahdo afurka, liannaha sababu wujuubiha. waxaa loogu idaafeeyo zakaatulfitri loo yiri waxa weeye sababtay u waajibtaaba waa afurkaa. markii bisha soonfur ay dhalato ayay waajib noqonaysaa inaad bixiso, waajib kugu noqonaysaa inay bixiso. marka saas ayaa loogu idaafeeyo loo yiri zakaatul fitri, saasaa loo yiri afurka sakadiisii. macnaha marka la afuro bay waajibaysaa. xikmatuhaa wa mashruuciyatuhaa, xikmada ku jirta zakaatulfitriga bixinteeda iyo mashruucnimadeeda laynoo ku jideeyey waxa ay tahay. can ibni cabaasin radia allahu canhu qaal farada rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam zakaata alfitri tuhratan lisaa'im min allagwi warafath wa ducmatan lilmasaakiin. wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabaas, rasuulkii ilaahay baa waajib yeelay zakaatulfitriga. zakaatulfitrigaas oo ah duhratan lisaa'im, qofkii soomanaa ayay mayraysaa. maxay ka mayraysaa? min allagwi warafath, hadalladii xumaa, gafafkii, wixii ka dhacay bisha ramadaan dhexdeeda wixii ka dhacay ayay ka mayraysaa. markaasay qofku wuxuu soo baxayaa isaga oo soonkiisii iyo naftiisii uu yahay nadiif, oo wax dembiya aysan korkiisa ahayn. wa ducmatan lilmasaakiin, dadka danyartaa oo aan iyagu markaas wax ku filan haysan, iyagana waxay u tahay cuntay u tahay. man adaaha qabla salaati fahiya zakaatun maqbuula, qofka bixiya salaada ciidda ka hor qofkii bixiya waxay tahay zaka maqbuulo ah, xagga ilaahay laga aqbalay. waman adaaha bacda salaat, salaada ciidda marka la tukado kadib qofka bixiyana fahiya sadaqatu min asadaqaat, waa sadaqa sadaqooyinka ka mid ah. marka maxaa la rabaa? intaan salaada ciidda la aadin ka hor inuu qofku soo bixiyo, waayo salaada ciidulfitriga waa la dibdhigaa. waxaa loo dibdhigaa in zakaatulfitriga lasoo bixiyo iyadoo zakadii la iska soo wada bixiyey markaas salaada lasoo aado. zakaatulfitriga waa in la bixiyo intaan salaada lasoo aadan ka hor. rawaahu abu daawuud, xadiiska 1371. qaala nawowiyu wuxuu yidhi rawaahu abu daawuud baa wariyey min riwaayati ibni cabaas, cabdullahi ibni cabaas riwaayadiisa abu daawuud baa kasoo wariyey, waana biisnaadin xasanin, sanad xasana weeye xadiidkaasi. qowluhu uu yidhi nebigu duhratun waxay u tahay lisaa'im, yacni tadhiiran linafsi man saama ramadaan. qofkan ramadaan soo soomay naftiisii ayay soo mayraysaa sakadaa uu bixiyey oo wixii ka dhacay oo muxuu ahaa xumaan ahaa. wa qowluhu yidhi arrafath, wuxuu ka mayraysaa min allagwi warafath. rafadka muxuu yahay? waxaa loola jeeda. qaala ibnu athiir wuxuu yidhi arrafathu hunan huwa alfuxshu weeyo min kalaamin, wixii xun oo hadal ahaa oo aad ku hadashay oo kaa dhacay daroodhiyadii, hadal aan macnaba ku jirin ama dembiga oo aad ku hadashay
ayay sakadu soo ay wixii hadalkaas ka dhacay oo gafa kaaga yimi ayay kaa mayrsaa wa tucmatun lilmasaakiina qowlka uu yidhina huwa طacaamu aladii yu'kal ducma waxaa la yidhahdaa wixii la cuno marka quud ama cuntay u tahay dadka masaakiinta ah man adaahaa qabla salaat ay qabla salaati alciid baa loola jeeda salaada horteed qofkii bixiya salaada ciidda horteed qofkii bixiya fahiya zakaatu lmaqbuula almuraadu bizakaat sadaqatu lfidri weeye zakaatu lmaqbuula meesha laleeyahay waxaa loola jeedaa waa sadaqatu lfidri sadaqatu min asadaqaat qowlkaa nebigu yidhi yacni alatii yatasadaqu biha fi saari lawqaat waxay la mid noqonaysaa waktiyada caadiga ah sadaqada aada la baxday haddii aad salaada kadib bixiso waxay la mid tahay sadaqooyinkaa xilliyada kale aada bixiso oo khayr baad ka helaysaa laakiin fadli weyn iyo ayaa ku dhaafay cawnulmacbuud bay ku taallaa saas ku caddahay sharx abi daawuud waqiila waxaa la yidhi hiya sadaqatulfidrigu almaqsuudatu waa tan loola jeedo biqowlihi tacaala ilaahay hadalka uu yidhi fii suurati alaclaa qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa waxaa liibaanay man tazakkaa kii naftiisa dayray oo zakadii iska bixiyey sakaatulfidrigii bixiyey wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magiciisana xusay oo fasallaa tukaday sakaatulfidrigii buu soo bixiyey markuu soo bixiyey ayuu yimi ciidkii soo aaday meeshii islaamku ku ciidayay oo ku kulmayeen wadakara sma rabbihi markaasuu xusay ilaahay magiciisii kibaartiibuu wax ka qaaday fasallaa markaasuu haddana tukaday salaatu ciidkii ruwiya can cumar bin cabdilcaziiz wa abilcaaliya qaalaa waxay yidhaahdeen addaa wuxuu bixiyey zakaata alfitri buu bixiyey qofkaasi uma kharaja wuxuu aaday ila salaat ay salaat alciid axkaamu lqur'aan liljasaas ayay ku taalaa juska saddexaad suurat alaclaa wa can wakiic bin ljaraax raximahu llahu tacaala qaal zakaatu lfidri lishahri ramadaan sakada bisha ramadaan zakada la bixiyo ka sadatay sahwi lisalaat waxay la mid tahay labada sujuudood oo sujuudu sahwiga la yidhaahdo ee salaada markii salaadaadii wax khalale ay ku yimaadaan lala yimaado sahwigu markuu kugu dhaco oo aad wax ilowdo oo waxaagii salaadaadii aad taam yeelato laba ragcadood laba sujuudood oo sujuudu sahwi ah ayaa lala yimaadaa marka labadaas sujuudood oo sujuud sahwiga ah waxaa lagu kabayaa khalalkii salaadaada ku yimi sakaatulfitrigana waxaa loo bixinayaa 30 beri ama 29 beri wixii khalal ahaa oo soonkaaga ku yimi ayay soo nadiifinayaan tajburu nuqsaana asawm nuqsaantii soonkaaga gaartay bay kabayaan sakaatulfidrigu kamaa yajburu sujuudu sida sujuuddu ay u kabto nuqsaana asalaat salaada nuqsaantii gaartay siday u kabto ayay sakaatulfidriguna waxay u kabayaan soonkaagii almajmuuc linawowi juska 6 xukmuhaa xukumkeedu waxa uu yahay sakaatulfidriga ma waajiba ma sunnaa ma mustaxaba ma wax iska asaxiixu annahaa fardun sakaatulfidrigu waa waajib qofkii heli kara waajib bay ku noqonaysaa waa liqowli bni cumara radia allahu canhu cabdullaahi bin cumar baa wuxuu leeyahay farada rasuulu llahi sal alayh wasalam zakaata alfidri rasuulka ilaahay baa waajib yeelay sakaatulfidriga iyo waliijmaaci alculamaa calaa annahaa fardun iyo islaamka culimada islaamka oo mutafaq ku ah inay faral tahay almuqni juska 2 baabu sadaqati alfidri waqtu wujuubihaa xilliga ay waajibayso goormay waajib kugu noqonaysaa mar waad bixin kartaa marna waa waajib mar waad bixin kartaayo maalan bisha ramadaan ama dhexdeedii oo kale ayaamaha bishu sii dhammaanayso waad bixin kartaa laakiin weli waajib kuguma noqon laakiin xilliga ay waajibayso waa goorma zakaatulfidri tajibu cala almuslimiin horta marka ugu horeysa muslim waxay ku waajibtaa waxaan leeyahay fa amaa waqtu lwujuub dheh wujuub xilliga ay waajibto fahuwa waqtu quruubi shamsi min aakhiri yowmin min ramadaan xilliga ay waajibto waa xilliga qoraxdu ay dhacdo maalinka bisha ramadaan ugu dambaysa ee shawaal la arko soonfur la arko markaasay waajib noqoto inta ka horeysa waajib kuguma ahayn
واسبحين كرتي لكن waxay waajib noqonaysaa marka qoraxdu ay dhacdo maalinka bisha ramadaan ugu dambaysa فإنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من آخر شهر رمضان waxay waajib noqonaysaa qoraxdu markay dhacdo maalinka bisha ramadaan ugu dambaysa faman tazawaja qofka guursada oo wulida lahu walad ama ilma loo dhalo oo aslama ama islaama qabla ghurubi shamsi qoraxdu intayan dhicin ka hor buu gabar guursaday ilma u dhashay xilligaasuuba islaamay facalayhi alfitra intaba fitradeedii waajib bay noqonaysaa gabadhaa la guursaday intaan qoraxdii dhicin ka hor ilmahaa dhashay intaan qoraxdu dhicin ka hor qofkaa islaamay intaan qoraxdu dhicin ka hor sakadoodii way waajibaysaa waayo labadii darafkii ramadaanna wuu soo gaaray darafkii soonfureedna wuu soo gaaray qofkaas sakadiisi waa waajibaysaa wain kaana hadday arrimahaasi dhacaan bacda alqurub qoraxdu markay dhacdo bishii shawaal la arkay kadib buu gabadha guursaday ama ilmaha loo dhalay ama qof kale islaamay waa qorax dhacii kadib ayay arrimahaasi ay dhaceen lam talzamhu zakadii kullaa waajibi mayso zakadii lagu yeelan maayo wamar maata qofkii dhinta bacda ghuruubi shamsi qoraxdu markay dhacday kadib baa qofkii dhintay laylat alfitri habeenkii afurka oo ciidka qoraxdii oo dhacday kadib buu qofkii dhintay facalayhi sadaqatulfitri qofkaas sadaqatulfitrigii waa lagu leeyahay sadaqatulfitrigii waa lagu leeyahay waayo labadii darafba wuu soo gaaray labadii darafba nasa calayhi saa waxa caddeeyey axmed imaam axmed baa ku caddeeyey almuqni juska labaad fasalka waqtu wujuubi zakaati alfitri calaa man tajib yay ku waajibtaa marka waqtiga ay waajibto garanay waa qoraxdu ramadaan maalinka ugu dambaysa qoraxdu markay dhacdo ayay waajibtaa dad yay ku waajibtaa marka su-aasha ku taa waxay tahay calaa man tajibu yay korkiisa sakadu noqotaa dadka oo dhan ma ku wada waajibaysaa maqaar gooniyay ku waajibaysaa zakaatulfidri tajibu cala almuslimiin horta zakaatulfidri waxay ku waajibtaa qof islaam ah gaal kuma waajibto laakiin aakhira waa loo ciqaabayaa laakiin hadda keen la odhan maayo waajib kuma aha maxaa yeelay shardigii ka horreeyo islaamnimada habaa meesha ka maqan عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رسولك إلهي وحكو واجب يا لزكاة الفطر صاع أو تمر أما صاع أو شعير راشين لعنه راشين كالعنه هرورها هذا بريسها هذا محوها برها وحي لعنه yaa lagu yeelanayaa cala alcabdi addoonkii waa lagu leeyahay walxururi kii xortaa waa lagu leeyahay waldakari kii labkaa baa lagu leeyahay walunhaa dhadigii baa lagu leeyahay wasaqiiri kii yaraa baa lagu leeyahay walkabiiri kii weynaa oo min almuslimiin hadda ah muslimiinta ah bukhaari xadiiska 1407 qaala shaaficiyu raximahullah wuxuu yidhi sheekh shaafici وفي الحديث وحكسوا دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين حديث كان وحنا تصينا إياه إن النبي كواجب يلين إلا مسلمين مو يعيد كأنه كواجب يلين وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل تصينا وأرن وافقصا إلهي كتاب كيسو فإنه جعل الزكاة للمسلمين إلهي زكاة الفطر وحو مسلمين تأغير ظهورا وحي مير لها أو نظيفين لها والطهور لا يكون إلا للمسلمين نظيفنا يدن بكرافنا مسلم قفانا هين ماله وحيكو عدها الأم جسك الله بعد باب كالزكاة الفطرية تجب على المستطيع وحيكو واجبتها زكاة الفطرية قفكي كاري كرا أوده قال الشافعي وحيري وكل من دخل عليه شوال qofkii bisha soonfureed u soo gasho wa cindahu quutuhu agtiisana ay tahay ama haysta wuxuu cuni lahaa wa quutu man yaquutuhu iyo inta uu masruufo waxay cuni lahaayeen yowmahu maalinkaas maxaa kaloo ah wamaa yu-addii bihi zakaata alfitri canhu wa canhum wuxuu zakada kaga bixin lahaa zakaatulfitriga wuxuu ku bixin lahaa ama naftiisa kaga bixin lahaa ama kuwa uu masruufo kaga bixin lahaana waa haysaa أداها عنهم وعنهم إساقا إياقا وحكا بحيو مركا
لا وحي واهيستا ما أنت وحو عوني لها إساقا ينتو مصروفا وهيستا وحو إساقا كبحينا واهيستا هكبحيو إساقا يأيقبا وإن لم يكن عنده هدوسا أكتيسا وصراهين إلا ما يؤدي عن بعضهم وحو عوني لها واهيستا وحاو ديري وحو ويه وحو قيبتود زكاة كبحيو هيستا لكن وحو كوضا بحيو ما هيستو هداها عن بعض برها كبحيو ضدك بركي هكا بحيو انت وهيو وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه وح أي عنان إساقا إيا انت ومصروفه وح أنا هين مالك وح عنان وح أنا هين ما هيستان فليس عليه ولا ولا عن من على من يغوت عنه زكاة الفطر كركيسة ماها انت ومصروفانا كركودا ماها وح زكاة ولقول إياهي إساقا إيا انتو مصروفتونا مجران mar haddii uusan haysan wixii maalinka ayaa habeenkaa cuni lahaayeen wax dheer haddii uusan haysan wax zaka ah oo isaga iyo intuu masruufa lagu leeyahay ma jirto juska labaad baabu zakaati alfitri qaala nawowiyu wuxuu leeyahay raximah allahu tacaala almucsiru laa fitrata calayhi bilaa khilaaf qofka cayrka ah khilaaf la-aan wax zakaa laguma le cayr waa culimmadu mutafaq bay ku tahay walictibaaru bilyasaari walicsaari bixaali lwujuub waxaa la fiirinayaa cayrnimadiisa iyo hodannimadiisaba waxaa la fiirinayaa xilliga zakadu ay waajibto waxaa laga yaabaa shalay mid hodan ahaa inuu maanta cayr yahay oo wixiisii xalay aafo rabbaaniya isgaba timaado marka qoraxda maalinka markay dhacdo bisha ramadaan ugu dambayso oo shawaal ay dhalato xilligaas ayaa la fiirinayaa qofka kani wax ma haystaa mise wax ma haysto فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويوم ساع قفكي هايستا وحدير cuntadiisa iyo inta u masruufo cuntadoodii habeenkaa iyo maalinkaa haddii hal saac u dheer yahay saaca sidiisa waxaa la yidhahdaa markaynu garaamka u fiirino waa 2500 oo garaam ama haddaynu sida kale nado waa 2 kiiliya bar marka wuxuu haystaa qofkii 2 kiiliya bar baa soo dheeraaday masruufkiisii iyo intuu isagu masruufo nafaqadoodii habeenkaa maalintaa waxa soo dheer muxuu ahaa 2 kiiliya bar baa dheer fahuwa muusirun qofkaasi waa hodan intaasuu hodan ku yahay intaasuu bixinaya 2 kiiliya barkaasuu bixinaya wa in lam yafdul shayun haddaan waxba ka soo harayn masruufkooda wax dheeraadihii kuma jiro habeenkaa maanta wax cunahayeen waxba ma dheera fahuwa mucsirun cayr weeyaho walaa yalzumuhu shayun fi lxaali markaa wax ku waajibay ma jiraan haddii inta lagu jiro maalinka haddii ilaahay wax soo geliyo de waa oo uu hodan noqdo waa bixinaya almajmuuc juska 6 ayuu ku yaalaa shuruudu wujuubi zakaati alfitri sadaqati alfitri yukhrijaha alinsaan almuslim can nafsihi qofkan muslimka ay wuxuu ka bixinayaa naftiisa horta wacaman yunfiqu calayhim min azawjaat wuxuu kaloo ka bixinayaa inta uu masruufo oo nafaqadooda bixiyo oo xaasaskiisa ah iyo walaa qaaribi inta qaraabadiisa ah waase idaa lam yastatiicuu ikhraajaha qaraabadatan haddayan iska bixin karin can anfusihim haddayan iska bixin karin masruufkoodana ku waajibay isagaa ka bixinaya fain istataacuu hadday awoodaan iska bixin karaan fal awlaa waxay tahay an yukhrijuuhaahum inay iska bixiyaan carruurtiisa waaweyn iyo muxuu ahaa iyo qaraabadiisa iyo dadkaas leanna waa almukhaadabuuna biha aslan dadka laleeyahay ha bixiyeen bay ka mid yihiin oo lala hadlayo فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو واجب يلي زكاة الفطر ساعة وين النبي أما دارت هلا يرادو وأدو ما أنت قرامهان ولبا كيلية بر ومن تمر أو ساعة من شعير تمر إيا هذا شعير بالينو شيء لكن وحكة أوراشين أو لقوتو راشية كيت كقرأ على العبد baa laga bixinaya والحر baa laga bixinaya والذكري labkii baa la bixinaya والأنثى dhadgii baa laga bixinaya والصغير kii yara والكبير ومن المسلمين وأمر بها نبيgu wuxuu amray hadana أن تؤدى قبل خروج الصلاة قبل خروج الناس إلى الصلاة dadku intayan salaada u bixin ka hor inay bixiyaan intayan salaada u bixin ka hor inay bixiyaanna nebigu wuu amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxiixu lbukhaari xadiiska 1407 وقال الشافعي وحولي رحمه الله تعالى ويؤدي ولي المعتوه والسبي عنهما زكاة الفطر قفا كان
caqliga wax uga dhiman yihiin oo mactuuha la yidhaahdo oo qof iska nacasa oo aan isku fillayn iyo ilmaha aan qaangaarka ahayn zakaatulfidrigoodii waxa bixinaya weligooda wa caman talzumuhumaa mu'natuhu qofka labadaasi nafaqadoodu ay ku waajibtana weligaa ka bixinaya maalan mactuuha kan xooluhuba leeyahay sabiguna xooluu leeyahay xoolahaas ay leeyihiin cid kale ayaa xaq ku leh oo masruufkoodu iyaguu dul saaran yahay marka intoo dhan waxaa wada bixinaya kaa weliga u ah kan mactuuha iyo sabiga ayaa ka wada bixinaya kamaa tu'addii asaxiixu can nafsisa qofka fayoobi oo ama qaangaarka naftiisa uga bixin laha oo kale ayaa iyagana looga bixinayaa inta nafaqadoodu xoolahaas ay leeyihiin ay ku waajibtana uu weligaas ugaga bixinayaa qofkaas weliga u ah ayaa ka bixinaya wain kaana fii man yumawinu kaafirun hadduu yahay qofka masruufa waaba gaal lam yalzumhu zakaatu lfidri canhu zakaatulfidrigiisii ku waajib ku noqon mayso zakaatulfidrigiisii waxaaba masruufa qof gaal ah marka zakaatulfidrigiisii waajib ku noqon mayso liannahu laa yatlu bizakaat maxaa yeelay zakaatulfidri gaal isagu waxba ka mayri mayso oo saasaysan zakaatulfidri ugu waajibeyn baabu zakaati lfidri wa qaala saaxibu lmuhadab qaala almusanifu wuxuu yihi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi waman wajabat calayhi fidratuhu qofkii naftiisa ay ku waajibto fidru inuu fidrada bixiyo wajabat calayhi fidratu man talzumu nafaqatuhu in kaanuu muslimiin inta uu masruufa hadday muslim yihiinna sakadoodii waa ku waajibaysaa adiga haddii naftaada inaad zakada bixiso ay waajib kugu noqoto inta aad masruufto oo muslimiinta ah sakadoodii inaad bixisana waajib bay kugu noqonaysaa wawajada wana inuu heli karo qofku maa yuaddi canhum wuxuu kaga bixiyo oo faadilan can nafaqati nafaqadii habeen iyo maalinkaas ciidka habeenka ciidka iyo maalinkiisa wax nafaqadoodii dheerna uu heli karo waajib bay ku noqonaysaa fayajibu cala alabi waalummi wa calaa abiihima wa ummihimaa aabbihii iyo hooyadii awowgii iyo ayeeyadii waxaa korkooda ah haba weyn calow haba sareeyeen awowgaagii saddexaadba hadduu noqdo ha noqdee waxaa waajib ku aabbaha iyo hooyada iyo awowga iyo ayeeyada waxaa waajib ku noqonaysa fidratu waladihimaa ilmahoodii inay fidrada ka bixiyaan iyo wawaladi waladihimaa iyo ilmahoodu ilmaha uu sii dhalo wain safalo haba hooseeyeene laakiin waa in masruufkoodu markuu ku waajibo weyi mar haddii masruufkoodu aabbaha iyo hooyada ama awowga iyo ayeyda hadday doonaan kii labaadba ha ahaadeen haddii nafaqadoodu iyaga ku waajibtay sakadoodii inay bixiyaanna waajib bay ku noqonaysaa sida oo kale wa cala alwaladi wa waladi walad ilmahaaga ilmihiisa aad awowaha u tahay wain safalo haba hooseeyeene fidratu labi walummi hooyadii iyo aabbihii iyo wa abiihimaa wa ummihimaa awowgii iyo ayeeyadii fidradoodii waajib bay ku noqonaysaa in ilmahaasi uu bixiyo wain calow awowgaagii saddexaadba hadduu doono ha noqday ayeeyadaa saddexaade waase goorma idaa wajabat calayhim nafaqatuhum marka masruufkooda adiga ku saaran yahay mar haddaad awowgaa adigu masruufto zakadiisana aday ku fuulaysaa waajib kugu noqonaysaa ayeydaa waa sidoo kale haddaad masruufka adiga lagu leeyahay aday zakadoodana waajib kugu noqonaysaa waa isu cagsiyo haddii sidoo kale ilmaha awowga aad u tahay adigu ay masruufkiisa adiga ku saaran yahay waalidka ah sakaatulfidrigiisa inaad adigu ku saaran yahay almajmuuc juska lixaad yukhriju linsaanu can nafsihi qofku wuxuu horta ka bixinayaa naftiisu ka bixinaya wa zawjatihi buu ka bixinayaa wain kaana lahaa maalun haweentaadu hadday doonto taajiradba ha haatee zakadeedii adaa lagugu leeyahay wa awlaaduhu alfuqaraa ayuu ka bixinayaa caruurtiisa cayrtaana wuu ka bixinayaa wa waalidayhi alfaqiirayn labadiisa waalid ee faqiirkaana wuu ka bixinayaa waajib saaran weeye waalbinta alatii lam yadkhul bihaa zawjahaa gabadha aan weli ninkeedii dhisan oo aad dhashana adaa ka bixinaya fain kaana waladuhu qaniyan haddii ilmaha aad dhashay uu hodan yahay lam yajib calayhi an yukhrija canhu waajib kuguma aha inaad zaka ka bixisi wa yukhraju zawju
يخرج الزوج can mudallaqatihi rajciya ninku wuxuu bixinayaa haweenta uu furay laakiin wax ugu harsan yihiin xaaskiisii buu furay wuxuu ku furay ama dalqad ama laba dalqadood waxbaa ugu harsan intaas ay ka cidda baxayso waxay qabtaa xukmu zawja waayo waad soo ceshan kartaa haweenta masruufkeediina waa lagu leeyahay sakaatulfitrigeediina waa lagu leeyahay lannaashiza walalbaa-in waxaan lagu lahayn haweenta kaalufada ah oo khilaafka kaaga maqan iyo tii aad saddexdeedii ay kaa go'day oo saddexda kaaga tagtay midna iyaga nafaqadoodii iyo sakadoodii laguma leh walaa yalzamu lwalada ikhraaju fidrati zawjati abiihi alfaqiir aabbahaaga faqiirka xaaskiisa fitradeedii ilmuhu inuu bixiyo waajib kuma aha waajib wuu bixin karaa laakiin waajib kuma aha aabbaha oo faqiira xaaska uu qabo inaad zakadii zakaatulfitriga ka bixiso liannahu laa tajibu calayhi nafaqatuhaa eedadaa aabbahaa qabo zakaatulfitri nafaqadeeda adiga waajib kuguma aha xaq waa masruufi kartaa dee waa ehelkaa laakiin zakaatulfitrigeedii iyo nafaqadeedii midna waajib kuguma aha yaa lagu bilaabayaa zakaatulfitriga wa yubda-u bilaqrab falaqrab qofba qofku ka dhow yahay ayaa lagu bilaabayaa binafsihi buu ka bilaabayaa fa zawjatihi buu ku xijinayaa fa awlaaduhu caruurtiisa uma baqiyata qaraabadii soo hadhay aqrabuhum fa aqrabuhum midba midkuu ka dhow yahay calaa xasabi qaanuuni miiraat sidii dhaxalka oo kale ayay u kala sokeeyaanoo midba midkuu ka sokeeyo ayaa zakaatulfitriga marka laga bixinayo laga bilaabaya in sha allahu tacaala casharkeena koowaad ikhwaanii wa axbaabi fillaah intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa in sha allahu casharadeena dambe ayaynu halkaas kasii qaadi doonaa oo kasii wadi doonaa وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.